mid ba ku weydiiya haa uur baa leedahay buu igu yiri saa waxaan ku iraaday maxaa aragti may xaaladahaaga isbedelay baan dareemay buu isaan wax la joogay oo ilmo dhashay waxay igu tiraahday ilmaha iska dil door baa u diray intii kale oo wax dhacday wuxuu igu dhaana ku darsanaya ma qameel ku kino kolba uu ku darsaday waxa dhacday inaan habeen oo imaan u dhahay waa imaanaya laakiin wuu baaqday baa waxaan tagay meel suuqa ayo dadku ku wada kulmaan wiilkan oo fiidiyowga maanta laga duubay iyo wiil kaloo yar ee gabdho badan baa meel ku wada kulmeynay meesha waxaan ka hadlaynay inaad waxa dhawaa xalfad yar soo dhaweyntaas inaa wax ugu dhigo soo dhaweeyay baa rabay waxa jirta adigu meeshii gabar aan la socday baa wixii aaday meel aniga dadkii bay iga dhex tagtay shukaansi bay aaday gabadha waxa jirta wiilka waxa ku dhahay anu markii waxaan laba saac baa xaafadda aadaya baa ku dhahay marka uma qamin gabadha inay daahayso hayba ku dhahay laba saac baa xaafadda aadaya marka xaafadda ku soo wacaya waxa dhacday wiilashii baa iska dhaxgalo meel baa iska fadhiyay taleefankeeda baa iska gashtay maray koodii ahayd koodii habeenimo isoo wacay anoo meesha jooga waxaan ku dhahay waa ka maqnaa markuu ii wacayay qoraal baan kula hadlayay xoogaa goobiri waa baaqad wax saas ugu dhahay marka ku dhahay maxaa xilliga ku soo jeediyay marka soo dhawaad maxaa qabanaysa xilliga soo qoraal wili meeshii kama tegin kuma dhihin moogtay kuma dhihi karo waayo waxa is dhaay uu xanaaqaya qofka ku tiro laba saac xaafadda aadaya waxaan ku dhahay waxa jirta baan ku dhahay anigu hadeera soo kacay hadeera waxa uu soo kacay wili wax saas baan ku dhahay waxa dhacday waxa jirta hay'adu igu dhaano iska seexanayay biri waa baaqday biri dambaa imaanaya hay adu maray afartii ahayd oo ilaa hadda aan meeshii joogo gabadhiina ay markaa ii timid buu isoo wacay markii isoo wacay midashiki baa ku jiray video call igu soo wacay kama qabanin khadka xirtay khadka markaan xirtay gabadhii buu wacay wuxuu ku dhahay maxaa iqrameeyay tirmar hore igu dambeysay saaxiibkiisu wacay iqrameeyay ma arag waxa jirta markii dambe wuxuu ku dhahay wiilka saaxiibkiisa ahaa warniyow gabadhan ay nala joogtay adayna ka dhacayso way ka baqaysay wax saas ah saas ku yiraahday waxa dhacday anigu waxa imaaday xaafadii xaafadda markaa imaaday waan furay khadku waa wacay markaas uu igu dhahay oo maxaa anigu beenti ugu sheegaysa ma meel aadaysa ku diidi jiray markaas waxaan ku dhahay anigu waxaan kugu dhahay laba saac baa xaafadda aadaya soo maha waxaan ka dhacay inaad ma taqaana aad iga xanaaqdo oo daan gabar baa meel aadaha gabadhasan ku xiran ayadan guriga la joogaa soo maha waxa dhacday markaa waxa ku dhahay boo saas wax u jiraanin soo wuxuu igu dhahay waayahay midawilku waa xanaaqsan yahay anigu si caadi buu ila hadlayay adigu ayadoo sidii baa maalintii dambe soo dhaweeyay markaa soo dhaweeyay oo maalin aan garoon ka soo kaxeeyay diyaaradaha oo imaaday habeenkii si uu nala joogay baa ka tagay xaafadeeda aaday saaid baa isku bedelay xaaladeeda ma fiicneenin aniga dhan isbedel weyn baa iska dareemay umana sheegi karo haddaan u sheego waxyaalo qaar baan ka baqayaa uu hore ii dhihi jiray marka wiilkii adigu saayay ahayd buu isoo wacay wuxuu akhrina kula kulmaan rabaa saakur maxaa dhacay saa wuxuu horta call uu saarnaa oo hooyadiis la saarnaa uu isoo sawiray wuxuu dhahay yaa la hadlaysay baa kula soo hooy maxaa dhacay inaan kula kulmaan rabaa anaa ku sheegay haye baan ku yiri waa la kulmay markaan la kulmay buu wuxuu yiri hooy waxay u tiri gabadha hadaa iskaga harin aad darteed safarka u gashay aad darteed u tagtay hadaadan iskaga harin familkeygana waa ka saaraya wax intaayo wax aashii wax lacagana kuma lihid shaqo uu bil lacag uga soo dhici jirtayna way ka jaratay marka waxaan ku iraaday maxaa xalaas yiri inaan kala harna ma rabo inaan ma taqaana aan kala harna ma rabo inaan ma taqaana aan hooyadii hadalkeeda qaadan waayana ma rabo waxaan ku raday isma keenayso mid u go oo ma garanaysa anigana xaaladeedu waa iska warqabtaayo qof kaa maarmaba ihiba dhanka familkaagana waad ka warqabtaa okay wuxuu igu dhahay hal mid baa sameynaya waa tahriibayaa buu igu dhahay wuxuu igu dhahay maama eedadeeyo halkaa kore jirta baa soo tahriib lacagtana kaa bixinaya
waxa dhacday waan kursiba tahriibaysa ana u diiday moogtaa ila taribtu waa dhib badan tahay wuxuu ku yiri meel yar oo fudud baa ka baxaya diyaarada ku soconaya waxaan ku dhahay wuxuu igu dhahay markaa ayadoo saa ay tahay baa wuxuu igu dhahay iqray midba ku weydiiya haa uur baa leedahay buu igu yiri waxaan ku iraaday maxaa aragti may xaaladahaaga isbedelay baan dareemay waxaan ku dhahay maya waxba ma lihiye maxaa weeye sababta macnaha hadalka ku keentay waa weydiiyey marka waxaa jirtay gabar aan ka soo tegay intaan gabadhan kale hadda la joogo u imaanin aan gurigeeda isku baaray gabadhaasna anigu qofku wixii dhihi jiray qofka aad la joogtay ibar sanka xaaladaada kaaga warqabo waan baray waxaa jirtay gabadhaasaan midhaa waxa ku jiraa gabadha uur bay leedahay anigu dee saasaan u fikiray marka waxaa dhacday wiilku wuxuu dhahay isbaar waxaan ku dhahay aniguna isbitaalkii waxaasaan ka dhacay waan nacayay anoo dee ishuba inaan haddana baaritaan kala maro irbado mataqaanaa dhiig kale layga baaro waxaasaan diidayay sababta ugu sheegi waayey inaan uur u leeyahayna waxay ahayd hadal hore uu igu dhahay anoo garowa joogno hadduu wuxuu igu dhahay haddii micnaha xamar intaas aadno waa iska ilaalinaynaa ilmo iyo waxaas haddii yimaadaana dee waa ka hortegaynaa micnaheeda waa fahmaysaa waa dilaynaa camal haa marka waxaan ku hadalkaas dartiis anigana ma jecelin ilmahayga inaa wax la gaarsiiyo moogtahay qofka dee calooshaada ilmaha galay xanuunka dumaris waa dareemaysaa dumar unbaa dareemi karo waxaan ku arrintaa awgeed baa uga dhacayay adigu maalmo suu ii dhahayay isbaar baa maalintii dambe wuxuu igu dhahay haddaa uur leedahayna waa ka hortegaynaa hadda ii sheeg macnaha intuu 5 bilood gaarin waxaa jirtay adigu wiilka arrintaa uurka gabadha say u sheegtay waxaa ka dareemay isbeddel aad u weyn sidii hore inuusan ahayn wiilka inuusan aniga isoo wicin mar walba dagaal joogto ah doo qof si u taga ma waynaysid ma waayo wuxuu raadinaya jaanis uu ku baxo moogta waxaa dhacday arrin social media timaaday oo maalintaas ahayd marka inta aanan wiilkan waa isku dhaacnay maalmahan isdagaalnay baa waxaa dhacday video waa TikTok soo dhigay maalmaha waxaa sameeyey maadaama arkay wiilkan si ii yahay anigana familkeyga aan la joogin oo familkeyga ma garanaysaa oo qof walba aniga intuu soo waca ay dhahay meesha kuga aragna waaba ku dilaynaaba ay dhahayaan baa waxaa sameeyey waxaan ku iqray adoo saa lagu raadsanayo oo ninka dartiis familkaaga iskugu dhacdeen maanta hadday ilmo kugu sii arkaan maxaa filanaysaa dee wax weyn baa kugu dhici kara waxaa sameeyey gabadha la joogay oo ilmo dhashaba waxay igu tiraahday ilmaha iska dil tala isiisay waxaan ku yiri baayay seebaa u dilaa adiga waxay igu tiri anaa wax ku siinaya cun waxay isiisay kiniini iyo bari bay iskugu kay dartay idaha iskugu kay dartay aduu kiniinay markaa cunay oo isbuuc adigu anoo xoogaa waxaan dareemay adigu xanuun aad u fara badan waxyaalo badan baa iga yimid isbedela marka waxa dhacday anoo waxyaalahaas iga socdaanin oo aniga asaga aan TikTok imaaday inta anagoo isku dhacsan baa xoogaa buuqayga ilinteeda TikTok aragtay anoo marka waxaa u dulqaadan waayay stresska familka stresska ilmahan nolosha adagoon ku jiro meel anigu leeyahay xor ku ahay ma joogo dee iska dareemaysaa gabar xaaladeeda markii xaaladaha adag ku jirto